haddaba dad badan ayaa ku tilmaamay waxaanu inuu yahay jin waa makhluuq la yaab leh oo ay kamarada CCTV ay duubtay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaan asxaabteeda qaaliga ee ku xidhan channelkeena Maxamed Wardi Official. intaanan muuqaalka bilaabin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto siduu dad badan u gaadho anagana dhiirigelin nagu noqoto. asxaabtiinana u sii share gareeya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga. meel walbaad joogtaan, channelkan waa channelkeeni ee soo dhawaada. waxaan idiin hayaa 3 muuqaal oo ka mid ah muuqaalada ugu la yaabka badan ee kamarada CCTV la yiraahdo ay duubtay. haddaba muuqaaladaas waynu isla daawan doonaa. haddaba muuqaalka ugu horeeya haddaan soo qaato waxa uu yahay hooyo iyo wiilkeedii ayaa waxay gurigooda dhexdooda ay ku arkeen waxyaabo la yaab leh. haddaba waxyaabaha la yaab kale ay ku arkeen waxa ka mid ah gurigoodii ayaa lagu dhex shaqaysanayaa. haddii ay weelkii noqoto waa la ridayaa, haddii ay maryihii noqoto waa la jiidanayaa. haddaba dad badan ayaa ku tilmaamay waxaanu inuu yahay jin, balse ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa og waxaanu waxay yihiin. haddaba hooyadanu TikTok-teeda ayay soo gelisay. TikTok-teedana waxaa ugu qoran Martina. haddaba muuqaalka waa kane, bal ila fiirso. muuqaalka sidaad arkayseen waxay ahaayeen runtii muuqaalo la yaab leh. dadku runtii fasiraad waxaan way u waayeen oo waxay ku tilmaameen waxaanu inuu jin yahay. balse asxaabta qaaliga, idinku waxaan maxaad u maleynaysaan? fikradiina iyo ra'yigiina commentiga hoose igu reeba. haddaba muuqaalka ku xiga waxa uu yahay waa makhluuq la yaab leh oo ay kamarada CCTV ay duubtay. haddaba makhluuqan wuxuu yahay waa la garan waayey ama waa la kasi waayey, balse waxaan fasiraad waa loo waayey. bal muuqaalka waa kane, ila fiirsada. maxaad u malaynaysaa waxaan? muxuu kula muuqdaa? waa makhluuqaadka la yaabka leh ee ay duubtay kamarada CCTV. bal fikradaada commentiga hoose nagu reeb. haddaba muuqaalkan wuxuu yahay muuqaal la yaab leh. waa gabadh sac wada, waa hindiya weeye. waa gabadh sac bay wadaa, kadibna siday saca u waday nin mooto watay ayaa ka hor yimi. ninkaa mootada watay mootadiisu guux xoogan ayay lahayd. dabeetana sacii ayaa ninkii hirdin ku dhuftay. ninkii iyo mootadiisiba meel bannaan ah ayay ku duuleen. ninkii haddaba xaaladiisu halis ayay gaadhay oo gabadhii ayaa ku soo carartay. dad kaloo iyaguna goobtaa joogay oo goobtaa u dhowaa ayaa iyaguna goobtii yimi oo goobtii ku soo cararay. haddaba ninkaa xaaladiisu halis ayay gaadhay. waxaa la isweydiiyey haddaba maxay tahay sababta uu sacu u hurdiyey. markii la eegay waxay noqotay inuu sacu ka xanaaqay guuxa mootada. bal muuqaalka waa kane, ila daawada.
muuqaalkan wuxuu ahaa muuqaal naxdin badan oo dad badan ay ka naxeen, bal adigoo mooto wata hadduu sac sidaasoo kale kuu geli lahaa ka hor, runtii waa arrin xun. ninkuna xaaladiisa halis ayay gaadhay sidii idiin muuqatay. asxaabteeda qaaliga, muuqaaladeeni maanta intaa ayay nagu joogaan. haddii aad muuqaalkan 1000 like aad gaadhsiisaan, insha allah muuqaalada noocan oo kale ah waan soo badinayaa. muuqaalkana like ta saara, asxaabtiinana usii sheer gareeya. aad baad mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga. waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga.